dowladda hoose degmada Laascaanood ayaa muddooyinkii dambe waday qorshe kor loogu qaadayo soo celinta bilicda magaalada Laascaanood iyo sidoo kale duminta wadooyin loo dhistay si sharci darro ah. Maayirka degmada Laascaanood Cismaan Saleebaan Jaamac, xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Laascaanood Cabdi Khayr Dirir iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa booqasho ku tagay xaafadda bariga magaalada Laascaanood, halkaas oo dowladda hoose ka waday howlgal lagu baneynayo wadooyin hore u xidhnaa, waxayna si isku mid ah baaq ugu direen dhammaan shacabka sidii ay uga wada shaqeyn lahaayeen furitaanka wadooyinkan iyo sidoo kale soo celinta bilicda magaalada. dadweynaha waxaan uga digaynaa in dadkii dhabooyinka degan ay ka urursadaan sanduuqyada cusubada degan. magaalada waxaa xidhay musul barkeed iyo ciid laga qoray kii aan wada degayna ciid iyo barkeed iyo musul buu ka sameeyay wadooyinkii iyaga dan ugu jirta guriga bilicdiisa in mustaqbalka laami soo maro asxaabta iyada jiradka marka hore iska xidhay haddana waan u furnaa insha Allah hore u xidhnay sida daraadeed waxaan leenahay dadweynaha ama ka codsanayna inay wadooyinka ilaaliyaan ciddii wado loogu yimaado waxa laga qaadayaa tallaabo sharci oo arrintooda waxa jira dadka soo cabanaya wadooyinka laga furo sida loo yeero waxaan ku balan qaadaynaa inaan qof walba gurubtiisa u codsana ugu nimaano haddana marka aan wadadu qaabkay tahay iyo dhibaato ka taagan waan isxaqaano waxaan isbuuxo hoytaalkiina aad qaban kartaa qabta gurmad baan ku nimi gurmadkuna waa mid insha Allah taala aan wadno socon doona intii karaankayga capacity-ga meesha looga baahan yahay iyo waxa ay baahan tahay waxa aad anaga nooga baahan weyn waxaan ka codsanaa marka shacabweynaha gobolka Sool guud ahaantii meel ka soo joogo dowladda inagaas kale inaga intifaacsana cid marta ama cid loogu adeega ama cid xuso marana waa inaga tan iyo intii golaha deegaanka degmada Laascaanood ay u doorteen Cismaan Saleebaan Jaamac gudoomiyaha golahaasi ayaa waxay soo tiraya horumar si xawli ah ku socda kaas oo ku talaabsanayso dowladda hoose ayna ugu horeyso soo celinta town baleenka magaalada iyo sidoo kale dhisidda wadooyin cusub kuwaas oo la saari doono laami mana aha markii ugu horeysay dowladda hoose hawlgal noocan oo kale ah ka fuliso gudaha magaalada Laascaanood. Samiir Saciid Bile TV-ga caalamiga Somali Cable Laascaanood.